maxadka barashada culumta shareecada iyo luqadda carabiga ee alfurqaan ee magaalada Buuhoodle oo ah maxadka ugu baaxadda weyn magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ka qalin jebiyey 31 arday oo noqonaya dufcaddii shanaad ee ka baxda maxadkaasi iyadoo ardaydani loo qabtay xaflad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle macallimiin culimaawidiin ka soo kicitimay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo mas'uuliyiin kale waxaana halkaasi laga soo jeediyay khudbado aad u qiiro geliyay bulshaweyntii ka soo qayb gashay xafladdaasi waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika faraceeda Buuhoodle ahna maamulaha maxadka alfurqaan Dr. Cabdishaafi Axmed Cali waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta xafladdan ka soo qayb gashay wafdiga qaaliga ah ee sharafta leh ee inooga yimid magaalada Laascaanood oo ugu horeeyo sheekheena weyn Sheekh Axmed Maxamed Suleymaan injineer Jaamac Cabdilaahi Caydiid Professor Cabdirasaaq Maxamed Aadam Lafoole waxaan leenahay soo dhawaada si diiran oo sharaf leh duruustii iyo casharadii qiimaha badnaa ee seminaarka ahaa ee macaahidda shareecada ee deegaanka oo dhan aad u qabateen aad faa'iideyseen khayr Allah idinka siiyo halka waxaa isugu yimi deegaanka macaahiddiisa ilaa iyo Woodwood ilaa Axmed lagu xidh ilaa Marqaan iyo deegaanada ku hareeraysan oo dhan halkan ayayna ku qaateen hoolka macadka alfurqaan seminar aad qaali ah oo maanta usoo gabagaboobay waa sharaf macaahidda magaalada dhan oo ka soo qayb gashay oo ugu horeeya macadkan weyn alfurqaan macadka Salama macadka al-Sunna macadka al-Faaruq macadka Khadiija bint Khuwaylid macadka Abubakar as-Siddiq macadka dugsiga sare Hawd Secondary School iyo macaahid kala duwan ayaa halkan seminaarka iyagana ugu soo xidhay macallimiintiisa iyo maamulada arrintaas iyo hoggaanka iyo kulankaas qiimaha leh waa uga mahad celinaynaa macadkan aynu joognay alfurqaan waxaad aragtaan dadka hadda qalin jebinaya waa macallimiintii waa hooyooyinkii iyo waalidkii waa dhalinyaradii ardayda ahayd ee sekondariyada iyo iskuullada maadiga dhiganaysay iyagana waa kuwa kalena waa ku boorinayaa waalidka kale saas oo kale qaybta habeenkii way furan tahay haddana arday fiican ayaa dhiganaya oo habeenkii dhigta dadkan jaaniska subaxii u hayna waa ugu yeedhaynaa waa ku boorinaynaa waxaana u diyaara oo ugu diyaarsan xarunta maamulka qaybta habeenkii oo ah Sheekh Shaafici ayaa u diyaarsan insha Allahu oo ay ugu iman karaan mar walba wixii macluumaadana ka qaadanayaan dhinaca kale waxaan boorinayaa ardayda aan dhiirigelinayaa maanta qalin jebisay waxaan leeyahay hore u sii socda idinkoo jaanisku idinku yaryahay baad wax barateen iminkana waxbarashada ha kaga hadhina intooda badan hadda waxay dhigtaan jaamacadda bariga Afrika faraceeda Buuhoodle waxaana looga dhigay shahaadooyinkii maadaama kashf darajaadkii ay qaadanayaan in intidaar shahaadada inta u imanaysa la sugo shahaadada waxaa laga soo diyaariyey jaamacadda bariga Afrika xarunteeda magaalada Boosaaso waa shahaado aad caalami u ah oo ardaygu meel walba uu la tegi karo dhalinyarada kuwa barta shareecada iyo kuwa maadiga bartaba adduunyada maanta waxay noqotay warqad masidataa adaan waxba garanay hadda warqadda la soo baxdo waxa laga yaabaa in lagu ictibaariyo laakiin haddaan warqad aad sidan oo aad xaafid dunya tahay ummahaatu sita dhakada ka haysay quraanka iyo kutub tafaasiir wax lagu ictibaariyo ma jirto dhinaca kale waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal Professor Lafoole waxaan idin leenahay wanaag baad tusiseen waa naga farxiseen wax wanaagsanna waanu idinku aragnay Allah idinka farxiyo ardayda qalin jebinaysa waxaan leeyahay 31 waan hajeenayaa tirada in lagu sheegay 31giinaasi waxtarka iyo wax ka bedelka magaalada aad ku soo kordhisaan baanu sugaynaa Buuhoodle waa dadaaleen khayr Allah siiyo waa idin garab taaganahay rag iyo dumarba waxa aad ii soo jiito qalbigayga ruuxay haweenka waalidka ah oo hawlaha ayaan aynu ognahay oo maanta ka takharujay macadka aad baan soo dhaweynaa waxaan ugu ambaliyaynaynaa macallin kasta oo jooga ka diinka dhigaya iyo ka maamulka ka maadiga dhigayaba waxaan aad ugu soo ambaliyaynaynaa macallin Cabdishaafi oo waxbarashada qiimaheeda isu sheegi mayno aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkan soo barbaariyay ee macallimiinta ahaa aad baan waxaan ugu mahadnaqaynaa sidii caashaba tiri Dr. Cabdishaafi
runtii waa isbedel weyn ummadda hadday diinta usoo jeesato waxay cisigu ku jiraa midnimadu ku jirtaa walaalnimadu ku jirtaa quwadu ku jirtaa sharaftu ku jirtaa xariga ilaahay aynu qabsano mar kale ayaan ku celinayaa ugu dambeyntii garaad cabdilaahi garaad soofe ayaa wuxuu shahaadooyin guddoonsiiyey ardaydii halkaasi ka qalin jabinaysay isagoona kelmadiisa ku soo xidhay madashaasi salaanka bacdi ilaahay baa mahadle ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa xafladan qiimiga badan ee lagaga hadlayo ardayda laysugu yimid ardaydii ka soo jeedaysay maxadka furqaan shahaadooyinka lagu siinay ilaahayga isugu keenkeenay ilaahaygaasa mahadle ilaahayna waxaanu ka baryaynaa meel wanaagsan baa xagga tacliintu ay noo maraysaa inuu noo soo siyaadiyo ooda annagaa soo joogi jiray iyadoo tacliintu meeloosay tahay baanu arki jiray maantana ilaa jaamacadda inooga furan alxamdulilaahi rabbil caalamiin kolley dadaalun bay ku timid maqaadiir weye laakiin dadaal bay ku timid dadaalka alla inoo siyaadiyo cabdicasiis aadan jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad magaalada Buuhoodle.